Assalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan. Maanta waxaanu ka hadlaynaa faa'iidada uu leeyahay tufaaxa. Marka laga hadlayo tufaaxa, waxaa ku jira waxa loo yaqaano antioxidants oo la dagaalama haraadiga marka cuntada la dheefshiido waxyaabaha kasoo hara oo loo yaqaano free radicalska. Waxaana ku jira maadooyinka loo yaqaano antioxidants. Waxaa kaloo ku jira tufaaxa fiber. Marka laga hadlayo faa'iidooyinka guud ee caafimaad, wuxuu ka hortagaa tufaaxu cudurrada waqtiga dheer lala noolaado sida macaanka ama sonkorowga, xanuunada ku dhaca wadnaha iyo kansarka oo hadda kusoo badanaya dunida, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale dhinaca kale marka laga hadlayo tufaaxu wuxuu muhiim u yahay caafimaadka dheefshiidka maadaama ku jirto maadada loo yaqaano fiber. Waxaa kaloo sare u qaadaa in qofka markaa miisaankiisa uu si dhaqso ah u rido ama uu yareeyo waxa loo yaqaano cayilka iyo ugu dambeyntii caafimaadka maskaxda. Tani kulan dambe oo ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo.